baan horta ugu faraxsanahay marka koobaad inaan fursad u helo inaan intiinaan oo ah mas-uuliyiintii qaranka xagga amniga iyo mas-uuliyiintii gobolka banaadir guddoomiyeyaashii iyo maamuladii degmooyinka gobolka banaadir kulankan ay isugu yimaadeen inaan fursad idiin helo inaan idiin imaado oo aan idinla qaybsado dareenkayga horta taas aad baan ugu faraxsan runtii kulankan ma aha kulan aan ku xafladaynayno waa ficnaan lahayd inuu yahay kulan aan ku xafladaynayno annagoo guulo gaaray oo nabad u fadhina aad bay u ficnaan lahayd laakiin maanta ma aha waa kulan aan isugu nimid runtii inaan cabiro dareenka aad iyo aad u tiiraanyada badan ee ah in amnigeennu wax si ka yihiin inaan cabiro labadii habeenoo la soo dhaafay dadkeenna waxaa la geliyey cabsi iyo argagax baa laga geliyey waxaa lagu soo tuuray hoobiyeyaal waxaa lagu weeraray dambooyin arrintaas waxay astaan u tahay in wax qabad dhab ah aynu u baahan nahay cadowgu wuxuu ogaaday daldaloollo inay jiraan ayuu cadowgu ogaaday taa weeye waxa dhaqaajisay hadday og yihiin daldaloollo inaysan jirin cadowgu ma dhaqaaqeen umana hawoodeen inuu falalkii uu sameeyey labadii habeena lasoo dhaafay uu sameeyo runtii arrintaas waa arrin aan ka xunnahay dadkeennu xaq uma leh iyadoo ay joogto xukuumad ay doorteen iyadoo ay joogaan intaan oo maamul iyo amni iyo ciidan ah dadkeennu ma filayaan xaqna uma leh inay runtii cabsi ku noolaadaan oo guryahooda ay ka soo bixi waayaan oo cabsi ay ku noolaadaan mas-uuliyaddaas xukuumaddaa iskale mas-uuliyaddaas inteennan halkaa fadhidaa iskale dadkuna waa nala kula xisaabtamayaa xukuumadduna way kula xisaabtamaysaa inta iyada mas-uulka u ah way kula xisaabtamaysaa waxaa weeye wixii xalay iyo habeen hore dhacay jawaab cad baynu u baahan nahay sida ay ku dhaceen waxa keenay inay dhacaan jawaab cad baynu u baahan waxaan u malaynayaa in loo dhan yahay fadhigan oo dadkii jawaabta u xil saaraa inay bixiyaan inay u dhan yihiin waxaa kaloo meesha yaalla waxaanu rabnaa waxaas inaysan mar damba dhicin intaanu inay qorshayso oo ay xukuumadda u soo gudbiso qorshe cad oo dhab ah oo fulaya oo ah in laga hortegi karo lana joojin karo falal noocaasa inaysan dib u dhicin dadku jawaab buu naga sugayaa dadweynuhu jawaab bay naga sugayaan dadweynuhu waxay naga sugayaan in meesha xukuumad iyo ciidan ay joogaan ka jawaabi kara markuu cadowgu soo weeraro ummadda waxay naga sugayaan inay arkaan fal dhab ah oo dhacay ma aha hadal ma aha qorsho waraaq ku qoran fal dhab ah oo dhacay oo markaa ay ku seexan karaan oo ay oran karaan dadkii mas-uulka idiin ahaa dadkii mas-uulka ka ahaa amnigiina iyo maamulkiina way shaqaynayaan wixii aad doonayseenna way qabanayaan arrintaas marka waxaan u xil saarayaa
dhammaan inta halkaan fadhida ee ah madaxda gobolka banaadir maamuladiisa maamulka gobol guddoonka gobolka iyo guddoomiyeyaasha iyo wasaaradda amniga iyo taliyaasha ciidanka heer kastaba ha noqdeen in arrintaas jawaab cad laga keeno xisaabta wasiirku uu sheegayna xisaab xilkeedii naloo soo gudbiyo oo ay noo muuqato meesha arrintu ka hadlaysan tahay cidda mas-uulka ka ah ama hay-ad ha noqoto ama qof ha noqdo cidda mas-uulka ka ah hawshii in sidii la rabay aan loo qaban oo markaa cadowgu ka faa'iidaysto jawaab cad ayaan ka rabnaa wasiir adiga iyo inta kula shaqaysa iyo guddoonka gobolka runti taas waxaa xiga iyadoo road map cad aad ka keenaysaan ummadda kalsooni gelin kara xukuumaddana kalsooni gelin kara inaanay taas dib u dhacay oo ay jirto hawl la qabanayo oo keenaysa in arrimahaas laga hortegi karo runtii amni darrada dhac loo geysanayay goobo ka tirsan goobaha ganacsiga taasoo khalkhal ku abuureysa howlaha ganacsiga ee ummadeennu noloshiisa ay ku xiran tahay suuqa bakaaraha waad garanaysaan ahmiyadda uu u leeyahay dalkeeni guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan u malaynayaa falalkaas amni darrada ah inkastoo kuwii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha inaga soo gaarayeen waa dhici karaa suuqyada kalena inay ka jirto marka hawsha argagixisada iyo howlaha kale ee amni darrada ee lagula kacahayo hantida dadweynaha waxaa weeyaan waa waxa aynu u xil saaranahay dowlad ahaan gobol ahaan iyo ciidanka amniga ama nabadda sugaya aynu u xil saaranahay inaynu ka hortagno waxaan ayadana idin farayaa in arrintaas si dhaba looga howlgalo in si dhaba looga howlgalo natiijana laga dhaliyo howlgal aan natiijo lahayn waxba micnaa ma waxaa weeyaan natiijadu waa inay joogsadaan falalkaas waa inay baqaan dadka falalkaas geysanaya waa in la ciqaabo dadka falalkaas geysanaya waa in inta lasoo qabqabto si wanaagsan oo adag loo ciqaabo si aan loogu dayan ayaguna ay markaa meesha uga baxaan marka arrinta isukaaya keentay waa arrintaa waxyaabaha ka dhacayay xamar labadii habeenoo lasoo dhaafay iyo weliba waxyaabaha suuqyada ka dhacaya waxaan markaa ku soo gabagabeynayaa hadalkaygii inaad howl gashaan howl adag aada gashaan warbixinteedana ayna soo gaarto in hawshaas ay najaxday waa mahadsantihiin wixii media marka banaanka u saarayna ayada kula kira gaar